kalsooni. Inkasta oo ay dareemaan xanuun sida qof kale, dadka kalsooni ku qaba ayaa ula falgalaan iyaga oo qaadaya tallaabo halkii ay kaga sii nagaan lahaayeen dhammaadka ugu xun. Waxay naftooda u maleeyaan sidii ay xaaladii hore ku soo mareen oo waxay kiciyaan jawaabo celintooda ugu fiican iyagoo oo weydiinaya su'aashan sahlan: sidee qof kalsooni leh arrintan wax uga qaban karaa? Runtii waxaan u baahannahay isku kalsooni si aan nolosha u horumarino oo aan nafteena wanaag u dareenno. Kalsoonidu ma ahan wax aad ku dhalatay, waa wax aad ku dhisto ku celcelin. Dabcan jawiga qoyska iyo bey'ada carruurnimada ayaa ah qodobo muhiim ah oo dhista isku kalsoonaantayada. Laakiin markii aad qaangaar noqono, waxay awooddeena ugu jirtaa inaan nolosheena u rogno iyadoo aan loo eegin. Haddaba waa inaan qaadnaa mas'uuliyad buuxda dhanka nolosheena. Sidee loo qeexaa qof kalsooni isku qaba? Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaatid inaysan ahayn wax dhammaanteena ku fikirno marka aan qeexno qof kalsooni leh. Haddaba sidee loo sharxaa qof kalsooni leh? Qof kalsooni leh ayaa sida ugu fudud loogu sharxi karaa inuu leeyahay kalsooni aamusnaan ah. Waxay ku niyadsan yihiin iskooda inay isku haleeyaan oo ku qanacsan yihiin deegaankooda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ka hormar nasiibka, nasiib lama baahna, dadaalo ha quusan.